asalaamu calaykum saaxiibayaal filimkeena maanta waxa uu ku salaysan yahay dhacdo dhab ah oo ku saabsan dhaca bangi kana dhacda waddanka argentina looguna yeedho dhacii bangi ee adduunka ugu farsamada badnaa taariikhda amase ugu caqliga badnaa filimkeenna wuxuu ku bilaabmaya nin la yidhaahdo fernando ayaa shidanaya sigaar balse si lama filaana baabuur waddada maraya ayaa biyo ku daadiyey wuxuu eegayaa sigaarkii oo damay maadaama uu qoyeyna islamarkaasuu tuuray sigaarkii wuxuu bilaabay inuu sabeeyo biyaha jidhka maraya fernando si aada ayuu ugu fiirsanayay sigaarka sabaynaya biyaha ilaa uu tuunalka ka galay isla markaas ayuuna kor u eegay wuxuuna arkay banki caana oo waddada ku yaala uu yaro fikiray kadibna wuxuu raacay jihada tuunalka biyaha ilaa meesha ugu dambeysa ee biyuhu ka baxaan wuxuu hoos ugu fiirsaday afka dhuunta biyaha dabadeedna wuxuu eegay bankiga dhinaca kale ku yaal fernando ayaa isla markiiba fikrad halisa ku soo dhacday wuxuu wacay saaxiibkiis wuxuuna la tegay bannaanka hore ee bankiga waxay ka faa'iidaysteen habeenkii roogu daa'ay waxayna xadhig cabiraad ah hoos ugu rideen dhuunta biyaha kadibna waxay tegeen meesha biyuhu ka baxaan in yar kadib fernando wuxuu helay xadhigii markuu fiiriyeyna wuxuu ogaaday in meesha ay joogaan ay u jirta 18 mitir albaabka weyn ee bankiga wuxuu keliya u baahnaa inuu qodo tunnel ama god dhulka hoostiisa si uu si toosa ugu gaadhi kara albaabka kaydka lacagta ee bankiga markaas kadib labadoodiiba waxa u noqdeen gurigii si ay u qorsheeyaan sida ay u fulinayaan mishinka laakiin si tunnelka loo qodo waxay u baahnaayeen inay si saxa u ogaadaan masaafada u dhaxaysa dhuunta biyaha iyo bankiga waana inay cabiraan iyagoo aan dadka iyo ilaaladuba ka shakin kadib fikir dheer fernando wuxuu u sheegay dias inuu calaamadeeyo godka 18aad ee shaaga baaskiilka markaas waxay iska dhigi doonaan dad waddada maraya oo wata baaskiil iyagoo ka bilaabaya daboolka dhuunta biyaha ilaa ay albaabka bankiga ka gaadhaan iyagoo tirinaya inta jeer shaaga baaskiilku wareego sidaas ayayna si fudud ku ogaadeen masaafada u dhaxaysa daboolka dhuunta iyo albaabka bankiga tuunalka hore waxay ahayd 18 mitir dhinaca kale masaafada tooska ah ee u dhaxaysa dhuunta iyo bankigu iyaduna waxay ahayd 6.5 mitir fernando wuxuu isticmaalay xisaab si uu u xisaabiyo dherarka tuunalka iyo meelaha la mari doono iyo wakhtiga ay qaadan doonto inkastoo ay haysteen dhammaan cabiradii saxda ahaa weli maysan bilaaban karin qorshahooda fernando wuxuu u baahday inuu ogaado meesha saxda ah ee kaydka lacagta bankigu yaallo wuxuu galay bankiga isagoo iska dhigaya macmiil wuxuuna si qarsoodiya sawiro uga qaaday albaabka dambe ee bankiga isagoo adeegsanayay kamera yar kadibna wuxuu si degan u galay hoolka bankiga wuxuuna mar kale qaaday sawiro meelaha kaamirooyinka ammaanku yaalaan iyo habka guduhu uu u dhisan yahay markii uu arkay in cidina aysan fiirinayn wuxuu si geesinimo leh u bilaabay inuu sawir ka qaado meesha lacagta laga kala qaato laakiin markuu dhammeeyey sawiradii oo uu doonayay inuu baxo waardiyayaashii ammaanka ayaa ka shakiyey habdhaqankiisa waxayna u kaxeeyeen qolka ammaanka wayna baadheen inkastoo si qoto dheer loo baaray wax sawira oo shakileh lagama helin waxaynu aragnaa in fernando uu hore uga saaray kaarka memeriga ee kaamirada wuxuu si olokaca u rabay in waardiyayaashu ay qabtaan si gudaha uu uga arko qaabka kaydka hoose ee bankigu u dhisan yahay iyo halka lacagta la dhigo alla muxuu caqli ku baashaalay intii askartu sii wadeen wuxuu si fiican u xifdiyey sida uu guduhu u ekaa markii uu guriga yimidna wuxuu sawiradii iyo xasuustiisii u adeegsaday inuu sawiro nashqada kaydka ee lacagaha bankiga laakiin kaydka waxaa ku hareeraysnaa derbiyo bir adag leh markaa qorshihii hore suurtagal uu noqon waayey markii ay nashqada dib ugu fiirsadaanna waxay go'aansadeen inay tuunalka u qodaan dhinaca qolka security-ga kaasoo ku ag yaalla qolka lacagaha la dhigo qorshihii markii ay dhammeeyeenna waxay isla markiiba bilaabeen shaqadii waxay qaateen qalabkii ay u baahneeyeen iyagoo tuunalkii hoos u galay wakhti kadib marka ay soo laabteen fernando iyo kooxdiisii waxay guriga kaga doodayeen arrinka ah sidee degdeg loogu furi karaa sanduuqyada lacagta dias wuxuu soo jeediyey in qalab lagu furo sanduuqyada la adeegsado sababtoo ah mid kasta furistiisu waxay qaadanaysaa 2 daqiiqo sidoo kalena sanduuqyada kaydku waa boqolaal waana hawl badan yihiin oo wakhti ayaa ku dhimanaya sidaa darteed waxay bilaabeen inay fikiraan kadib mid ka mid a ayaa wuxuu yidhi waxaynu ka faa'iidaysan karnaa maalinta fasaxa ee dhammaadka isbuuca si wakhti badan loogu helo furista sanduuqyada yaryar laakiin fernando ayaa u sheegay in daqiiqad walba oo ay gudaha bankiga ku sii jiraan ay khatartu ku sii badanayso sidaa darteed waxa ugu muhiimsan ee hadda waxay ahayd in la helo hab degdega oo lagu furi karo sanduuqyada wuxuu soo jeediyey in marka hore qof walba oo kooxda ka midii uu barto sida sanduuqa qufulka looga jebiyo kadib wuxuu u sheegay mario inuu iska dhiga nin maalqabeen ah oo sanduuq ka kiraysanaya isagoo muhiimadiisu tahay inuu ogaado habka fasaladuhu ay u shaqaynayaan markii uu muddo la
dadaalayna ugu dambayntii wuu fahmay sida qufilku u shaqeeyo wuxuuna u sharaxayaa kooxdii kale. Sebastian wuxuu sameeyey mashiin gaar ah oo si fudud u furi kara qufilka waana ay ku farxeen arrinka. dhinaca kale kooxdii tuunalka qodaysay hakad ayay galeen sababtoo ah qalabka ay wax ku qodayeen ma ahayn mid taya leh wuuna xumaaday isla waqti yar kadib. Mario wuxuu u soo jeediyey in la iibsado qalab cabiraya biyaha laakiin Fernando uu ka diiday isagoo u sheegaya inaysan haysan lacag ku filan iyagoo garan la waxay sameeyaan. Sebastian ayaa fikir keenay wuxuu sameeyey tray board wuxuuna ku xidhay laser taasoo u shaqaysa sidii qalab iftiimiye ah oo cabir leh. sidaa darteed shaqada tuunalkuna si weyn ayay u sii socotaa hadda. kadib 3 maalmood iyo 2 habeen oo qodisa tuunalkii ay qodayeen wuxuu hadda u jira wax ka yar 8 mitir qolka kaydka lacagaha ee bankiga. laakiin yar kadib Mario wuxuu xasuustay arrin muhiima. wuxuu u sheegay inay haystaan qalab lagu furo sanduuqyada laakiin aysan haysan mid lagu furo albaabka birta ee weyn ee qolka kaydka. kadib way niyad jabeen waxayna tageen guryahoodii. Fernando aad buu niyad jabsanaa wuxuu daadartii ugu dhacay xagga sare ee guriga isagoo la sheekaysanaya xaaskiisa iyaduna naxariis u muujinayso. isla markiiba fikrad kale ayaa maskaxdiisa kusoo dhacday. wuxuu si degdeg ah ugu orday Mario una u sheegay fikradda cusub ee ah haddii aysan furi karin albaabka birta ah ee qolka kaydka waxay u bedeli karaan qorshaha keliya inay dhacaan bankiga xilli uu shaqaaluhu guduhu bankigu joogo sababtoo ah waa marka keliya albaabka kaydku furan yahay. hadda albaabka kaydka sida ay ku geli lahaayeen way xalliyeen keliya waxa u dhiman inay 2 koox isu qaybiyaan koox si toosa bankiga u weerarta iyo koox tunalkii soo mari doonta oo lacagaha qaadi doonta. markuu Fernando qorshaha u sharaxay Mario markii uu aqbalay isla markiiba Mario iyo Diaz waxay mariyeen Colgate farahooda waxayna xirteen koofiyada madow iyagoo qaatay qoryo fayga oo kuwa carruurta yaryar ku ciyaaraana. waxay si toosa u galeen gudaha bankiga isla 1 daqiiqo kadib tuugtii waxay la wareegeen bankigii oo dhan laakiin si ula kac ah way u dhaafeen waardiyaha ku jiray qolkii kaamirada. markii waardiyuhu arkay waxa dhacaya si degdeg ah ayuu booliska u wacay. kadib markii ay ogaadeen in waardiyuhu booliska wacay tuugtii ma ay iska waalin ee si xushmad leh ayay uga qaadeen telefoonka. dabadeed waxay baastooladii waardiyaha ka saareen xabadihii waxayna baastooladii ugu celiyeen jaabkiisa. xilligaas booliskii ayaa dhan walba ka soo istaagay bankiga laakiin tuugtu aad bay uga feejignaayeen. kadib waxay xidheen albaabada dambe ee bankiga waxayna mar kale fureen albaabka hore iyagoo waardiyihii ka saaray bankiga. ficiladoodaasi waxay wareer geliyeen booliskii. kadib markuu albaabka hore ay xidheen hadda waxa u bilaamatay dhacii bankiga ee ugu la yaabka badnaa taariikhda. ugu dambayntii tuugtii waxay la wareegeen shaqaalihii dabaqa sare iyo kan hooseba. intii kale kooxdu waxay u dhaqaaqeen xagga qolka kaydka lacagta ee dhulka hoostiisa. waxay si fudud ugu riixeen sanduuqa weyn oo xanibay waxaana aynu ogaanaynaa inuu yahay tuunalkii uu Fernando iyo kooxdiisu qodayeen muddada dheer. markii ay dhammaan kooxdu ay halkaas yimaadeen xiriiryadii ahayd inay si degdeg ah noloshooda ugu bedelaan hantiilayaal ayaa si u bilaabmatay. xilligaas dad badan ayaa bannaanka bankiga ka daawanayay waxaana yimid saxaafadda iyo koox boolis ah oo si gaara loo tababaray. waxaana hogaaminayay taliyo sare oo la odhan jiray Miguel oo ku ahaa khabiir weyn dhinaca dhaca bankiyada. markii waardiyihii bannaanka loo saaray uu sheegay in taleefankiisi laga qaaday Miguel markiiba uu wacay kooxdii si uu ugu tijaabiyey xeelad maskaxeed laakiin ka hor inta uusan hadlin tuugii ayaa taleefanka ku jaray. waxaynu ogaanaynaa inay tuugada ay hore u soo ogaadeen shaqada Miguel si ay si fiican ugu diyaargaroobaan hadal maskaxeed ama caqabadaha uu keeni karo. sidoo kale tuugtii waxay lacagtoodii ugu dambaysay ku bixinayaan barashada qaabka ay u jili lahaayeen inay yihiin tuug halisa. xitaa kahor inta uusan bilaaban dhacu Mario waxa uu hortaagnaa muraayad isagoo ku celcelinaya sidii uu ugu hanjabi lahaa shaqaalaha maxay fen yihiin. jeedadiisu waxay ahayd inuu iska dhigo mid askarta raba inuu wadahadal la furo si ay kooxda waqti ugu hesho inay dhammaan sanduuqyada wada furtaan. Fernando iyo saaxiibadiis waxay si degdeg ah u diyaariyeen qalabkoodii waxayna bilaabeen shaqadii. waqtiga aad buu muhiim ugu ahaa ayagoo haysta mashiinkii furista qufulka. Fernando wuxuu si dhaqsalo u furay sanduuqii ugu horeeyey laakiin waxba kama dhex helin. si kastaba ha ahaatee taasi ma niyad jabin. si kalsooni leh ayuu furay sanduuqii labaad halkaasoo ay lacag badan ku jirtay laakiin weli boqolaal sanduuqyo oo kale ayaa u harsanaa. xilligaas booliskii weli bannaanka ayay joogeen wax tallaabana ma aysan qaadin. waxay weli moodayeen in tuugtu yihiin dad iska bilaa qorshe ah sidaa darteed waxay doorteen inay wadahadal ku dhammeeyaan arrinta. Miguel wuxuu si isdaba jooga ugu dhiirigelinayay tuugtii inay isdhiibaan oo qirtaan dembiga. wuxuu sidoo kale ku hanjabay in bankiga ay boolis dhan ku hareeraysan yihiin oo xitaa cayaan aysan ka baxsan karin. waxay amar ku siiyeen koox booliisa inay si qarsoodi ah
saqafka bankiga u fuulaan isagoo Miguel hoos u dhigtay awoodda tuugtan. Iyar kadib tuugtii ayaa maqlay dhaqdhaqaaqa saqafka waxayna taleefankii ugu sheegeen Miguel in arrintaasi si weyn uga cadhaysiisay. Wuxuu ku hanjabay in haddii aysan saqafka horay uga degin hal daqiiqo gudaheed ay dhibaato la kulmi doonaan. Intaa kadib Miguel wuu u waabsaday kooxdii wuxuuna amray booliskii saqafka saarnaa inay dib uga laabtaan. Markay arkeen booliskii oo ka laabanaya tuugtii waxay ka codsadeen in taliyaha laftiisu uu yimaado si ay uga wada hadlaan badbaadada dadka gudaha ku jira. Miguel wuu ogolaaday halka tuugtii ay u jareen wadahadalka in ka badan saacad mana aysan imaanin. Waqti dheer kadib ayay telefoon u direen taliyihii iyagoo u sheegay inay shakiyeen balse waynu ogaanaynaa in arrintani ay ahayd qorshe ay iyagu hore u soo dejiyeen si kooxda kale ay waqti ugu helaan inay furaan dhammaan sanduuqyada. Kadib markii ay wada hadleen tuugii wuxuu dalbaday inuu la kulmo lawyerkiisii 30 daqiiqo gudahood isagoo u diray lambarka qareenka. Laakiin Miguel waxa uu ogaanayaa in lambar qaldan uu siiyey. taas beddelkeedana waxa uu soo kaxaysanayaa lawyer dhab ah. Xilligaas Mario oo ku jira gudaha bangiga wuxuu iska bixiyey koofiyadii madoobeed wuxuuna fadhiistay kursigii maamulaha isagoo la hadlaya qareenka iyo booliska. laakiin waxaynu ogaanaynaa in dhammaan wadahadalladu uu keliya u rabo si uu wakhtiga u lumiyo si kooxda kale ay wakhti ugu helaan furista qasnadaha lacagta. halka booliskii iyo taliyihii ay rumaysan yihiin hadallada qareenka taasoo Mario u suurtagelisay inuu wakhti badan u helo kooxdiisii. dhanka kale howlgalka furista sanduuqyada si habsami leh ayuu ku socdaa. isla xilligaas mid ka mid a dadka la haystay ayaa si lama filaana gacanta u taagay isagoo sheegaya inuu u baahan yahay musqul. tuugii wuxuu u sheegay inuu ku qabtay geedka decorationka laakiin mid ka mid a tuugta ayaa meel u dhow taagnaa taasi oo ka dhigtay inuusan xaajadiisa gudan. in yar kadib ninkii dhulka fadhiyey mar kale ayuu gacanta taagay isagoo codsanaya inuu musqusha galo. markan tuugii si toosa ayuu ugu soo fasaxayaa inuu galo musqusha laakiin markii uu arkay bastoolada gacanta tuuga ku jirta oo hor lulmanaysa aad buu u baqay oo uu isku sii daayay kaadidii. idiga kadib tuugii si lama filaana ayuu u furay albaabka weynee hore wuxuuna ninkii u soo saaray bannaanka. markii ninkii bannaanka u baxayna Miguel wuxuu si degdega ugu yimid ninkii isagoo weydiinaya xaaladda gudaha laakiin ninkii aad buu u baqay oo muu awoodin inuu hadal yidhaahdo. xitaa surwaalkiisii midabkiisu wuu isbedelay wuxuu isugu kaajay cabsi darteed. isla waqtiga markuu Miguel arkay tuugada oo si lama filaan ah u sii daayay qof la haystay wuu wareeray mana uusan garan waxa uu sameeyo. dhanka kale mid ka mid a booliska oo la socday dhaqdhaqaaqa gudaha ayaa waxa uu arkayaa arrin ka yaabiyey. wuxuu arkaa tuugii bagay ku jiray oo gacanta ku haya keeg dhalasho una si naxariis leh u shidaya shumac. waxaynu ogaanaynaa inuu maqlay haweeney 80 jira oo uu sheegaysa in maanta ay dhalashadeedii tahay. sidaas darteed wuxuu u sameeyey dabaaldeg dhalasho. wuxuu xitaa ku qasbay dadkii la haystay inay u heesaan una socobtumaan islaanta. kadib tuugii xushmada badnaa wuxuu haweeneydii daad ahayd si nabad leh ugu saaray gudaha bangiga. ficilkan lama filaanka ahi wuxuu wareergeliyey taliyihii khibradda lahaa. mar walba wuxuu dareemayay in tuugtan aysan u dhaqmin sidii tuuga caadi ah balse ma helin wax cad oo lagu qabto. dhanka kale Fernando wuxuu helay waqti dheeraada si uu furo sanduuqyada hadhay laakiin waxay la kulmeen dhibaato cusub. mashiinkii ay ku furayeen kufulka ayaa si lama filaan u istaagay iyadoo sababtu tahay xaddiga badan ee korontada oo sii kulileynayay mashiinka. sidaa darteedna wuu kululaaday wuuna istaagay waxaana khasab ku noqotay inay sugaan. isla waqtigaas saacadda qof kasta oo kooxda ah ayaa bilaabay inay dhawaaqaan. waxayna ahayd waqtigii ay ugu qorsheeyeen inay ka baxaan bangiga laakiin weli sanduuqyo kale ayaa u harsan. si kastaba ha ahaatee Fernando oo ahaa ninkii qorshaha keenay wuxuu ogaaday in lacag ku filan ay ururiyeen. sidaa darteed wuxuu amray in dhammaan kooxdu soo wada baxaan sidii la qorsheeyey. markii ay amarka heleen kooxdii dabaqa sare saarna waxay soo bixiyeen bastooladaha si ay dadka u cabsi geliyaan oo aysan u dhaqaaqin halka kuwa hoos joogayna ay bilaabeen in bixihii lacaguhu ku jireen u raraan godka. 3 ka mid a tiimka ayaa si degdega u galay gudaha tuunalka waxayna mid ugu ridayeen godka si lacagta ugu taraaraxdo tuunalka halka kuwii tuunalka hoose joogayna ay qabanayeen lacagaha. waxayna si dhaqso leh ugu rareen doonidii. labadii qof ee ugu dambeysay ee godka galay waxay lahaayeen mas'uuliyadda nadiifinta goobta. kadib markii dhammeeyeen nadiifintii waxay dib ugu riixeen qasnadii birta ahayd si ay u daboolaan afka godka. tiimkii oo dhammaystirna way ka baxeen baankii. dhanka kale booliskii bannaanka bankiga joogay aad bay u walwalsanaayeen. taliyihii wuxuu si degdega u diray koox ciidamo gaara si aysan tuugadu uga baxsan dhanka biyaha kadib markay lacagaha qaataan. dhanka kale Fernando oo weli gudaha ku jiray kuma
uu degdegin inuu baxo oo si degdeg dhulka ugu fidsaday tuwaal cas wuxuuna si nidaamsan u dhigay bastooladihii ay u isticmaaleen inta lagu jiray howlgalka ka hor inta uusan bixin wuxuu bilaabay inuu ku dhajiyo waraaqad raaligelina oo uu hore u sii diyaariyey fernando wuxuu sidaas u sameeyey si uusan u keen cadhada booliska sidoo kalena u muujiyey in bastooladaha ay isticmaaleen ay ahaayeen bastooladaha carruurta kuwaasoo ay soo mariyeen rinji madow oo rajaynayay in haddii la qabto xukunka ciqaabta ay u yaraan doonto ugu dambayntii kooxdii waxay ka baxeen bangiga iyagoo aan cidina dareemin markii booliska guduhu u soo galeen waxay arkeen dadkii la haysta oo si deggan u jiifa balse aysan joogin wax tuugahi markii si qoto dheer loo baadhay taliyii wuxuu arkay daadad dhulka ka muuqda wuxuu amray askartii kale inay riixaan armaajada waxayna arkeen in tuugadii ka baxeen godka iyagoo sii raacaya tunelka biyaha balse miguel wuxuu si kalsooni leh u rumaysnaa in tuugta la qaban doono maadaama uu koox khaas ah u dhigay meesha uu goodka biyuhu ku dhammaado laakiin wuxuu ilaaway in fernando uusan ka bixin meeshaas taas beddelkeedana wuxuu ka doortay inuu raaco jihada kale ee biyuhu ka yimaadaan maadaama uu ogaa in qof walba uu ku fikiri karo in halkaas laga baxsado waxay dhex mareen gudaha dhuunta ilaa ay gaadheen meel fog halkaasoo uu ku sugayey nin ka mida kooxda islamarkaas ayuu furay albaabkii gaadhiga ee dhanka hoose wuxuuna kor u qaaday daboolkii tuunelka wuxuuna bilaabay inuu lacagaha iyo tiilka u soo geliyo gaadhiga markii qofkii ugu dambeeyey gaadhiga fuulay sidoo kalena qalabkii iyo lacagtii ay gaadhiga ku hubsadeen waxay dib u xidheen tuunelkii biyaha kadibna halkii ayay ka soo dhaqaajiyeen ugu dambayntii dhacii bankigu si guula ayuu ku soo dhammaaday filimkeennu halkaas ayuu ku dhammaaday laakiin saaxiibayaal miyaad iga rumaysanaysaan in qisada filimkani ay ku salaysan tahay dhacdo dhaba oo isla qaabkan ah kana dhacday waddanka argentina taasoo ilaa hadda loogu yeedhay inay tahay dhacii banki ee ugu cajiibsanaa kada soomaalida bangiyadoodana sidaa ma loo dhici karaa fadlan kommentiga noogu reeb jawaabtaada hana isku dayin falalkan oo kale haddii aad ku cusub tahay janaalkan fadlan sabskaraib noo saar siina sheer garee mahadsanid